isaaq bay igu sheegaan daarood waan ahay igamana saaraysid yaa daarood ismaaciil aniga oo ka dhashay oo kaaxiga oo ka aqaan oo kaaga laandheeraysan igamana saari kartid maanta maxaa hadda gaaladii baa waxay ku qoratay gawaaridooda ismool kelmadda ismool haddaad sii raacdo waa daarood haddaad lambar ahaan u bedesho yaa gaaladii baa hadda waxaa waaye daaroodkii baa lagu diray waxaa waaye aniga daarood baan ahay dadkayga dhan oo maxaa degan magaalada la yidhaahdo buuhoodle iyo laascaanood iyo waddamadii aad haysataan xoogga ku haysataan diray waa daarood baan nahay anaga meel kale nama geynaysid dhulka daarood iyo xoolaha daarood aad naga ilaalinaysaan oo aad naagihiin u soo dirteen ood naga ilaalinaysaan idinka yeeli mayno waan idin dacweynaynaa daarood naftiisaan dacweynaynaa haddaan rabno oon maxkamad geynaynaa wax allaale wixii mataloo dhan nimankan waddanka Soomaaliya haysta oo magaalo walba haysta oo cadowga nagu soo lacagaha ku fasaqahayo oo una dhibaateynayana waxaan idin sheegayaa qasab kelmadda aad doonaysaan nagagama yeersan kartaan aniga oo ku qaadacsan oo Somaliland waa ku dhashay ee igama celin kartid ayaan waliba iska ka celinaya oo waliba aan dooran karaa meesha aan dooran karaa hadaan doono isaaq raaci karaa hadaan doono daarood aan raaci karaa hadaan doono daarood aan sheegan karaa waxaan doono aan sheegan karaa laakiin daarood igama horjoogsan kartid kaas waa daarood anaana kaaxiga anaana kaaga laandheeraysan anaana dhulka daarood dega anaana dhulka darawiishta dhulka daaroodka ugu harsan anaa dega aniga ayaana ku xukumahaya diray haddaynan naga joogin oo badaha aad ku jirtaan aydnan ka bixin waayo waxaan hadda aan aragnay aan dadkii daaroodka caruurihii iyo naagihii waa wada ooyayaan maraykanka joogi waxa ay ka wada ooyayaan waa qabiilka diraad waxay ka wada ooyayaan ciise waxay ka oodayaan guda biirsay waxay ka ooyayaan idinka oo kaashanay magaalada Djibouti idinka oo kaashanay aad dhibaato badan nagu haysataan haltaa waxaa keentay dadka dariskaana iyo gaalada inaan nagu dirtaan oo ka dhaadhicisaan inaan nahay dad dir ama afar nahay ama aan dad kale aad noogu sheegtaan ma nihin anagu daarood baan nahay waad ogtihiin waan idin abtirsan karaa haddaad ileedahay intaasoo awow you count all this father effect I want to know because I needed to know long time ago before I waste my time. Before you rape me, before all this, I needed to know to be who I am. But today, you cannot say this, that, no. Today, aniga dagaal bay inoo tahay, maxkamad bay inoo tahay, waa istacweynaynaa, diray, waxa weeye marka dhulka daarood aad isku ballaarisay, ayaa waxaa keentay inaad tiraahdo daarood dadkan ma aha, dadka oo anaga wax noo kala sheegto, gaaladii Maraykanka ahayd aad nagu dirto. oo hadda qaad boqolada ay necab yihiin aad nagu sheegto afar baa nagu sheegtaa markaad doontana waxaa nagu sheegtaa Nubian markaad doontana waxaa nagu sheegtaa jareer ma aniga jareer ma aniga hayo kaas madaxayga jareer miya oo kaas ma madaxayga jareer timahayga ma jareer ba ilaahay ka cabsaday timahayga ma jareer ba waa kaas timahayga ma jareer ba timahayga haye waxaad dhihi doontaa oo aad dhihi doontaa waxa weeye kuwa liinka la yiraahdo liinka maadaa dhiig iga qaaday dhiig maadaa iga qaaday aabaha kuwas iyo sharmutadii ay kuwa xushmaanaya mar dambe wallahi saad bi xushan may weeday dhiig maadaa iga qaaday balla weeye in dhiig la iska qaado oo in madaxweynayaasha dhiig laga qaado ayaa iga dalka xukumayo oo dadka naga celin waaye waa in madaxweynayaasha Soomaaliya dhiig laga qaado xiiraa Soomaaliya waa in dhiig laga qaado ka kilika shanaad waa in dhiig laga qaado waa in dhiig laga qaado mid walba waa in dhiig laga qaado waxa walba kulligood waa in dhiig laga qaado waxa weeyaan inaad annaga nagu sheegtaan jareer annaga Maraykanka oo idinka oo dhulkayga aan dogla la yaqaano oo meel walba dadkayga lagu yaqaano inaad annaga reer hayb ilmahayb ahaan aad nagu sheegtaan jareer adoon idinka yeeli mayno idinka adoon ah والله واد نو قوري ويدين سنتنada yadii baad qaadateen xoog baad nagu haysataan adduun weynaha waxaan u sheegayaa in Soomaalida Maraykanka joogta xoog nagu haysato ay bis dhasantan naga dhigtay dalkeenina ay qabsatay buuhoodle ay tirtireen oo xoogeen oo dadkii dhacaan magaalada buuhoodle anaga aan degaa oo u soo dagaalamay awaashi adeerada ay laayeen maantana ay doonayeen walaalkii inay maray ku dilaan Minneapolis walaalkii kalena ay xireen oo long jeel ay Ethiopia ku qariyeen meel kamid ah inta ka kaxeeyeen magaalada la yiraahdo Nairobi walaashina caruurta ka xoogeen oo aan dhisantii aanu nahay oo waxay cayn gobolka cayn aan nahay oo gobolka cayn aan ku dhalanay oo la yaqaano oo anagu aanu leenahay dhulka dadkiigu dago kalshaale magaalada heegaale
محارة دندن محارة مال والبعانو كدقنو دولك غويقة أو كتاتسن محارة إثيوبيا هادنا ما أنت رأي ذات كان الدولار كلين هيان ورعفر أنا هانو أما شان أنا هانو أما اللح أنا هانو نصردي أبيهم وسعه وحوية وحالة يسكو حيستا بأنت عاشيقي سان أنا هويوين كيانا أنا هنو حبارين آبان لين أنا كل آبان لين we have father everybody you want your father dir ina isticmaasho laakiin anaga waxa arta anaga hooyo عندها نوجلس anaga hooyadeedina dhashana aanu dirto hooyadana dhashana aanu dirto ka yeeli mayno idinka yeeli mayno waa la istacweynaya wadanka waa la idinka saaraya dawladnimo ma qaban kartaan waxba ma hayn kartaan dagaal la ku jirtaan adduunka lama heshin kartaan hay anagana adduunka waa nagu dirteen warbixinta la idinka keen weydo baan baa naga sheegteen been daarood ismaaciil anigoo ah baa waxa arta ina meel iyo qabiil yar cilla ay tuurto afar waxa xambaaranaysaa dhulbahanta ay xambaaranaysaa dhiidaas afarta aad ka keento dhiidaas you make that d for afar come you made afar for dhulbahanta dhulbahanta is a surname dhulbahanta is a Saciid Harti way Saciid Harti dhulbahanta is a Saciid Harti is surname is dhulbahanta is lerdi is not has nothing to do with afar. But let me explain to you people, you lying, you stealing at the sentence, you are very bad, you are this, you are bad. Wariya, marka anaga aad nagu leedahay kan ma ihid wariya anaga cadaankan anaga kaaga horeeyni waayo wadanka dawladnimada kaaga horeeyni magacaan kaaga horeeyni sandanada kaaga waxa cadaan u guursatay cadaan waa guursanay maxaa Yurub u guursatay Yurub dadkayga adinka u soo xaaqeen marka wadanka dadkayga soo aqaxseen Mareykanka email bay soo galeen هاي لوقت الصومالي كدوي إلاوين هاي ما خصب مياه أنا أني أترى أدوش إيجا صارتو دارود you know how many people دارود in United States that who doesn't speak Somali too many but let me explain to you I know people I know my tribe I know my cities all my cities I know all my cities Somalia Nugal Las Anod Buhol Taleh محارة كلشالة محارة دعمه محارة حالك I know. You tell me your people is not there. They're all dying. They're all hungry. You all killing them. You all stealing them. You all not give them a water. You are hiding them. You tell them they're only 38,000. That's not true. They should be more than 38,000. You're lying. See, you want to hide. You say last honor is only 75,000. That's not true. You just want to set up like the name of 75. No, there are more than 75,000 in Las Anod. What about it? There's more than 38,000 in Ain. There is a more than 200,000 in Taleh. My people live there, but you're hiding my people. You are claiming my town and try to claim that they cannot be town. They cannot be. Yes, of course they can be a town. They can be state. They can be a county. The county that tell me here in Texas, in Texas, called Dalworton Garden, they're only like 3,000. They are 3,000. What do you think? And they are a county. Let me explain to you people. You're so liar and you're stealing my names and you're stealing my state and you're stealing here United States my rights. I will not allow you that. I will not allow you that. Whoever responsible needs to understand it. I will not give up. I will not give up my rights. And you know what? You can tell me she's a Midgard. You can tell me names that does not belong to me. And you take away my name. Daarood Ismaaciil. I am another Daarood Ismaaciil. Adiga qaato. Kaami aday waa kugu dacweynaya. Dhibaatada waa kufsatay. Waa xoogtay. Waa dhacday. Waa soo ceyrsatay. Haye caruurteedii waa xirtay. Caruurtii walaashay waa xoogtay. Wali aad waxa artaan isu hantay garayso. Wallahi inaana ka dhuuman oo inaana ka yeelin. oo waxaan adduunweynaha ka codsanaya oo United Nations ka codsanaya oo Mareykanka ka codsanaya inay dadka naga reebaan been dadkan misdhintin nagu sameeyay misdhintin and they took our lands and our people. This about their goals, take our people and our lands, and then when they take our people and lands back home, they hang us here so we won't have the voice for them. They won't have the voice for them what they are doing to them. Yes, that's not right. Who's gonna have the voice? And we don't have the voice here. We have to have our voice. We need our freedom. It started with my brother Muhammad Gohe. When I go to court now and this coming, I want him this freedom to be just not being even questioned. Not his freedom should not be a question.
because you held his freedom so long. And you set my sister alone a room, taking all her kids, because the man who has the kids from her, he is different. He has a bloodline different. His bloodline is European, and her bloodline is Darod. Her bloodline is Darod. So who care? Who care? You want to take the lands of Darod, and you want to destroy Darod, and you claim our names, and you are destroying us and trash us, entire Darod people. You are claiming our names. We are not going to allow you to claim our names and take our people away from everywhere and kill them, abuse them, accuse them something they didn't do it. He said, she said needs to be stopped. Totally. He said, she said, but notion no kubabise. He said, she said. Ya ka dambeeya dad gaar ah baa ka dambeeya. Dad gaar ah oo xaasid ah baa ka dambeeya waxa soo dhan. Wallahi ya billahi ma YouTube ta wala iska maagaya. Waa la iska maagaya YouTube ta waa la iska kid celin